anigu maba huwada bay carruurta yaran baan hooyaa walaal marka waxaan doonaya idiin soo gargaartaan hooyo waxaana iska dhibaataysan. hooyo Farduus Jaamac Aadan waxay haysataa 4 hablood oo da ahaan yaryar ma haysato hooy ay galaan maalinkii waxa ay fadhiyaan halkani oo cadceeda habeenkii waxa ay seexdaan kitchada ama madbaxa raxmo oo iyadu qoyskani xaaladooda ka damqatay hooyo Farduus xaaladeeda caafimaad waa mid aan u saamaxayn inay shaqaysato waa tan hooyo Farduus oo xaaladeeda ka waramaysa iyadoo intii ay noo waramaysay dareenkeedu isbedelay isla markaasina xajisan kari weyday ilmada waan shaqaysan jiray ismaan ka shaqayn jiray markii dambana waan iska xanuunsan waxba waan shaqayn kari waayay dabeetana kiradiina waa la iga soo saaray 3 bilood la igu yeeshay la iga soo saaray dabeetana meel aan carruurtii laga qabto iyo meel aan qabto toona waan garan waayay geed hoosta waan iska fariistay ilaahay uu halka ku bariyay dabeetana dariiqa marsi adeegseeta ila hadashay oo igu tii hooyo maxaa halkan ku soo fariisay xaaladaha igu mar ugu waramay hooyo waxaan ay meel carruurta la galan waayay kiradiina waa la iga soo saaray hooyadaas aan iska dhibaataysan marka inantii baa igu tiri aqalka igu ciiriye ii kaalayo maalinta jikadii ay alaabta ka gurtay in seexisa habeenkiina jiifisa cuntada 3 waqtina wayna siisaa ilaahay mahad ka gaadhay marka waxay cunto wayna siisaa waxaan cuno wayna siisaa laakiin carruurta meel aan la galo hooy ayaan waayay marka hooy iska dhibaataysan baanay marka dadka waxaan ka codsanayaa in la soo caawiyo ayaa wala dadka muslimiinta ka codsanaya dal iyo dibadba jooga hooyo dhibaatadeedu aad muuqato oo geedka hoostiisa fariisata ayaan hay dhaxamaha dhacaya bustahaas ayaa anigu maba huwada bay carruurta yaran baan hooyaa walaal marka waxaan doonaya idiin soo gargaartaan hooyo waxaana iska dhibaataysan meel aan la galo carruurta ma haysto ma shaqaysto hablaan haysta caara marka waxaan doonayaa in la isoo caawiyo ayaan walaal doonayaa dar ilaahay habeen aakhiro ayaan doonaya walaal inaad ii soo caawisaan carruurta waxaan siiyo iyo meel aan la galo doona ma haysto blacaaran haystaa caarkuna way iska dhibaato badan yihiin intaa waa maalintii oo dhan halkaan fadhiyo ma seexdo warwar iyo walaac baa igu haysta camal ma hayo ma shaqaysto carruurta abood waanu kala tagnay wuu igu dayacay waxba iguma siiyo markaa walaal waxaan codsanayaa islaamka codsanaya walaal in la ii soo gargaaro oo meel aan galo la ii sameeyo walaal ayaan ka codsanayaa hooyada iska dhibaataysan baana aan waxna haysan geedka hoostiisana joogo Kawsar Cismaan waxay qoyskani muddo 2 bil ah ku haysay hoygeeda iyadoo habeenkii seexinaysay halka ay cuntada ku karsato marka ay ku dhameysato sidoo kalena cuntada siinaysay 3 waqti hadba waxa ay cunto waa tan iyadoo ka waramaysa sida ay ku heshay qoyskani walaal anu waxa 4 carruura iyo hooyadood anoo soo adeeganayo adeegsita ayaa waxaan ku samaray sees halkan iyagoo fadhiya markaasaan ku wiri maxay nagu dhacay gabadhu aad bay xanuunsanayso ma hadli kareen qanjaha xanuunay inta weyn baa tiri gurigii aanu hooyanini baana laga soo saaray ma haysano meel aan galno waxaan keen iska duruufaysayn ana waan soo kaxiyay bacdii markaan soo kaxiyay gurigeygii baan keenay markaan keenay meel aan seexiyo waay kitadaydii baan u baneeyay kitadaydii hooydaan maalintiina halkan bay iska fadhiistaa kitada marka aan cuntada ku dhameeyo ayaan u yeedhay cunteeyaan bay iska jiibsadaan bustaha ayaa u gogol ah dhaxanta dhacaysa wax alaali wax kale haystaan ma jirto iyo xabada caaw ah waa 4 carruur oo xabad busta iyo hooyadood uu ka dhaxeeyo walaalayaal dhaxanta aad arkaysaan bustahaas u huwasha anigu hadaan u helayo maanta waan gelin la cidna ma bariyeen cidna uma weydiiyeen laakiin anigu uma awoodayo ilaahay dartii hooyada ay 4 carruur waxaan doonay ummadda muslimiinta inay soo caawisaan hooy ay galaan soo sameeyaan hadii ilaahay idhaahdo Amin Muhammad Ahmed Television ka caalamiga Universal Hargeysa